socoto madaxtooyada buurta ee magaalada Jigjiga waa madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida xukuumaddu horey bay u ballan qaaday in ciidankaasi baroordiiq loo samayn doono qabanqaabadeeda socoto dhinaca Somalilandna si weyn bay arintaasi uga caroodeen 24 saac ee ugu dambeeyayna hadal haynteeda ayaa baraha bulshada ay ka taagnay waan dul istaagi doonaa balse inteena dul istaagin baroordiiqdaas inay sax tahay inay sax ahayn iyo qaabka ciidankaasi iyo mas'uuliyiinta loo laayay iyo tiradooda inta lagu qiyaasay iyo ujeedada xukuumaddu ay ka leedahay iyo xilliga waliba ay ku soo aadaysay kooxaha argagixisada inteena dul istaagin waxaan ku horeynaynaa Ethiopia dhul gariir baa ka dilaacay meelo badan oo kamid ah waliba kilalo kamid ah sida Canfarta deegaanka waxa weeye iyadana Axmaarada Oromada Bishaangul Gumus intaba dhul gariirka waxa kaaga daran waa hadda aad u jeedaan ee muuqaalka socda u jeedaan dhul gariirka waxa kaaga daranba buurihiina way dhaqaaqeen Ethiopia wal horaba dhulkeedu buuro u bay ahaa dowladda deegaanka Soomaalida dhulkan Soomaalida waxa la dhahaa waa dhul siman oo beeraley ah oo wax soo saar laakiin iyagu Ethiopia waa buuro dhulkoodu buurta dhaladeeda ayaa jaadku ka baxaa bariisku ka baxaa qamadigu ka baxaa qudaartu ka baxda xashiishtu ka baxda wax walba ay ka beertaan nin walba wuxuu beeranayo marka buurihii ay marka horeba ku dhibanaayeen ayaa dhaqaaqay horeyna waxaan idin kula wadaagnay magaalooyin dhan inay xabaalmeen magaalooyin dhan oo deganaa ayaaba xabaalmay oo dhulka ku darsamay hadda buurihii way dhaqaaqeen oo meelay u socdaan ilaahay baa garanaya oo nooga cilmi leh dhulkiina intuu hal mar ka dhow waxun biyo ay istaagaan baa waxa ka soo boodaya waxa qarmuun oo haddana dhimbil dab ah oo qulqulaysa waa volcanic way marka daadgurayntaas ka socota gudaha dalka Ethiopia in ka badan 300 oo kilomitir dadkii deganaaba la daadguraynaya oo hadee 300 oo kilomitir oo Ethiopia deegaanka Soomaalida oo kala ma ah deegaanka Soomaalida waxa laga yaabaa 300 ba inaysan ku nooleyn ba 200 kun oo qof ama 100 kun oo qof ba inaysan ku nooleyn laakiin iyagu dadkoodu waa issaarsan 300 ee kilomitir meeqa milyan baa laga daadguray xagee qaadi oo la geeyni xagee banaan oo Ethiopia loo geeyay dadka la geeyaya waan dul istaagi doonaa mashaqada Ethiopia haysata ee waliba xilli adag oo Abiy Ahmed uu safar ku maqayo deegaanka Soomaalida oo xoogaa dana ka soo gashay uu ku soo aadaysa ayaan muuqaalkan si fiican ugu qaada dhigi doonaa soo dhawaada muuqaalka la isaara aragtideena ugu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay madaxtooyada deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waxa ka socoto qabanqaabada baroordiiq loo samaynayo mujaahidiintii ku dhintay ee sida arxan darrada gaadmada ah kooxihii argagixisada ay ugu laayeen magaalada Dawacaaley tuulada Dawacaaley oo ka tirsan degmada Xarshin gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida ciidanka la laayay dagaal kuma aysan dhiban iyagoo dagaal ku jira kuma aysan dhiban waxay u tageen shaqaaqo halkaasi qabiilada wada degan beeraha wada degana bay halka u tageen intii nabadeynta ay ku jireen ma aysan filaynin waa la inalayn doonaa iyo argagixisa meeshan ku jirta oo kooxaha hubaysan ba halka lagu abaabulay ma aysan islahaynba ciidankii oo iska degan oo xaalkoodu degan yahay waayihii dambana seminaara loo furay oo ciidanku si waagi hore cabdiilaye hadday meeshu nabad tahay iyo hadday nabad ahayn ba indhahoodu u taagnaaye teeshinkoodu taagnaa ma ahayn oo 7 sano ugu dambeysay hubka dhigis baa horta ciidanka new booliska lagu sameeyay ina cagjar yahaayada intuu u yeeray xuquuqul insaana wuxuu yiri bal ciidanku waxay ugu sheeg oo maadaama ay xarbi ka soo bixeen waxay ugu sheeg oo xoogaa bal waxa weeye haystajiyaan hubka dhigis baa lagu sameeyay si kale kuma garato qoriga hoos u dhigalaalay dadka caadi oo la tacaabalo dad caadi u nool askariska caadi oo la nool dadkooda noqda leeyay ciidanku marka ma aysan feejignaynba waa la ina layn doonaa iyo kooxaha argagixisa halkan ku abaabulanayo ma aysan show meesha waa meel miinaysanba oo kooxaha intii la diyaariyay oo hubaysan baaba meesha lagu diyaariyay ciidankii waxaan ku soo bilowday madaafiic iyo hub tig iyo qoriyahoodu u tiirsan yihiin oo wax dhibaato aan meesha aan ka filayninba waa meesha dawlad shacabkooda ay la noolaayeen ee nabadgelyada u tageen ee la rabay waxa weeye ay lahaayeen shacabkan xoogaa is haystaa nabadaysiina neg suu iyo baalkii u badawada iyo doomishaan ba afka loo qabtay 39 askari iyo macaltaliyahoodii baa halkii lagu dilay hadda macaltaliyahoodii sarkaalkii saraakiisha wadatay baa halka lagu dilay
hoggaankii nabadgelyadana waa ka soorey iyo weliba saraakiil la socotay beeshii markay sidaas ay dhacday waa kii ciidanka new booliska ay galeen oo la yidhi bal u kaadiyo dadka deegaanka iyo beelaha inoo dambeeyaan iyo nabadayntoode dad shacaba waxa mehe hubkan shacab ma haysanine gantaaladan iyo balaadan la dhacay argagixisadan hortaan soo afjarnay lagu soo afjaray 200 iyagana laga dilay kooxdii duulaanka soo qaatay ciidankii marka sidaa dulmiga loo dilay ee saraakiisha lahayd ilaahay jannatul firdaws ha geeye wiilalaan dhibaato wadin oo waxay ahaayeen dhulkooda iyo dadkooda u shaqeynayo ilaalinayo weliba duruufo adag ku ilaalinaya hayeene ayaa baroordiiq loogu samaynayaa madaxtooyada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga baroordiiqdan marka waa un duco waa loo duceynayaa mujaahidiintaas halka ku shahiiday ee ku geeriyooday sida xaqdarrada ay gacanta ka xaqdaran ay dishay ayaa loogu duceynayaa waa duco xukuumaddu marka ducadaas bay soo abaabulaysaa abaabulkeedii bay wadaa odayaasha dhaqanka culimo u diinka bulshada qaybaheeda kala duwan baa la rabaa in xaflad weyn loogu dhigo oo aas qaran iyo duco ah in loogu dhigaa la rabaa buurta looga arrimiyo dowladda deegaanka Soomaalida arrintan marka oo dhiirigelin u noqonaysa laamaha amniga ee duruufaha adag ugu shaqeynaya dalkooda iyo dadkooda kuwii dhintayna loogu duceynayo eheladii ay ka tageen marxuumiintaasna lagu samrinayo ayay Somaliland u soo wada fadhiisteen marka 200 ee shacabkii caruurteen la laayay saa looma dhowrahayo waxa baroordiiq loo sameynaya askartii waxa way gaalada ahayd ee shacabka xasuuqday askartii war shacab la xasuuqayna ma jireen dadkan ay leeyihiin iyagu shacab baa laga xasuuqay ee hubaysan ee argagixisada meesha lagu soo abaabulay ka hor baa la laayay kuwan baroordiiqda loo sameynayo dagaalkiina kuma aysan dhibaninba waa kuwii iyagoo xeryahooda jooga ay argagixisadu weerartee dhibaataysay weeya arba waxay ka dhigayaan wax dagaal ku dhintay bay ka dhigayaan waa uga wada waa ciidankii ay soo gaadeen ee technical ay u adeegsadeen ee kooxdan khawaarijta meeshan laga saaray dawacali laga saaray ay dhibaataysay weeye waxaan leeyahay marka adeer hadday idinka gaalayni yihiin anagay mujaahidiin oo yihiin hadday idinka waxa weeye ay wax liitayna leeyihiin anagay wax sare noo yihiin annaga amnigooda ku joogna annaga deegaankaanaday waxa weeye ilaaliya annaga dhulkooda u dhasheen xukuumadduna waa xukuumadoodii dalka loogu dhigayo baroordiiqdana waa dalkoodii iyo deegaankoodii ma aha Somaliland iyo meesha argagixisada laga soo abaabule idinkana argagixisadiin iyo kuwii inaga dhintay Hargeysa ugu dhigta maxaa iska ka galay kuwii Hargeysa burcad ka soo dhigtay berbera ee leedii waa la laayay de idinkuna halka ugu dhigta maxaa iska ka galay qaylada maxay tahay oo intii calaadkan aad furateen afka furateen reerka marka warta waa arrin aan la yaabay weeye baroordiiq way afka furteen xagaas loogu dhigi shacabka ma loo dhigo shacabka maxaa naga galay soo kuwa hubaysan ee ciidanka laayama soo kuwa soo gudbay Soomaaliland laga soo abaabulay ma soo kuwa ciidankii ilaalinayay gab ka siiyay ma maxay ahaayeen maxay ujeedkoodu muxuu ahaa qorshooda markay ciidankii laabihii amniga ay ku jiifeen ee shacabka ilaalinayay ay leynayeen hadday shacab ahaayeen maxay ahayd sababta u laayeen taas marka horta taasaan ka leeyahay nimanka qaylqayliyay idoor waxaan leeyahay adeer anaga baroordiiqdaanada iyo waxaanada waan dhiganaynaa xukuumadduna way ku mahadsan tahay dhinaca jarna aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay baroordiiqda iyo qabanqaabadeeda waana arrintaasna waan soo dhaweynayaa anigu aad baan ugu farxay markii la ciidanka loo dhigaya nimanka mujaahidiintana ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws gacan ka xaqdaran baa dishay janno way gelayaane jannatul firdaws ilaahay inuu geeyo ayaan ilaahay uga rajaynaynaa sababtoo dulmi ma wadin amniga deegaanka bay ilaalinayeen xilay iskaga jireenoo ayagoo qoryahooda u tirsan yihiin baba meeshooda lagu laayay taasi waa baroordiiqda dhinaca kale Ethiopia dad gurayn bay ku jirtaa mashaqo ayaa gacmaha iyo lugahaba u galay mashaqo ayay ku jirtaa mashaqaha aan maqli jirtay waa mid Ethiopia maanta haysata dhul gariir cabirkiisa lagu sheegay 5.8 5.8 nooca ugu sareeya ayaa horta Ethiopia ku dhuftay saddex qaybood buu iskugu jiraa dhul gariirkan qaar horta buurihii baa dhaqaaqay buurihii dheerdheeraa ee oromada iyo axmaarada iyo bishaanguul gumiskiyo ay fuuli la'aayeen dhulkay ku darmadeen horta way dhaqaaqeen buuro dhan baa intay dhaqaaqeen bay dhul siman noqdeen dhulkii horta midaas waa buurihii dhaqaaqay waxaa ka sii horeysay buurahan dhaqaaqay magaalooyin dhan oo rogmaday magaalooyin haddaad maqli jirta suurgadoon baa rogmaday Ethiopia ku rogmaday hadda meelo ka mid ah magaalooyin dhan baa xabaalmay oo ciidu ay ku rogmatay
oo dadkii yaa allahu qay intoodii badna ay uga baxeen taasoo horta waa taasoo waa buuraha dhaqaaqay miduna waa volcanic waxa la yidhaahdo oo dhulka unbaa meel un fad 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 sida muuqaalka hordhiciisa ha daawateen fad 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 oo fad 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 bahla biyaa oo dhibil dabaa unbaaba ka soo boodaya labada arrimoodba marka horta saameyn badan bay ku yeelatay bulshadii deganeed ilaa 300 oo kilomitir ka badan oo Itoobiya dhexdeeda markii la isku dardaro ayaa volcanic-gaas iyo buurahaas dhaqaaqay ay Itoobiya horta ka dilaaceen midda saddexaadna meelaha qaar biyo caadi ah yaa fay ka soo dhay meel lagu ganacsanayo ma aragtay ganacsiga bartankiisuun ay ilka boodaysaa fay hawadayba qabsanaysaaba waa biyo laakiin iska caadi ah oo waliba nadiif away waliba nadiifa arrimahaas horta Itoobiya haysato mashaqada ku dhacday deegaanada ay ka dhacday volcanic-gan iyo dhulgariirkan iyo waliba dilaac dhuleedo dhulku intuu dilaac uu kala baray waliba noqonayo dhul untag oo iska noqonayo waa deegaanka Canfarta deegaanka Axmaarada deegaanka Oromada deegaanka Bishaangul Gumus nimanka la yiraahdo sad afarta deegaanba volcanadu iyo sidoo kale dhulgariirkaba waa uu ka dhacay deegaanka Soomaalida naftirkeeda degmo ku taala gobolka City ee dawladda deegaanka Soomaalida oo la yiraahdo Afdem degmadaas wuxuu oromay dhinaca bogta isxigaan iyo Canfar iyo isxigaan oo afkooda lama garanayo oo qolada Ciise degmadaas ba iyadana dhulgariir ba ka dhacay oo laakiin dhibaatana ma geysanin oo wax khasaara lama soo warinin oo dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale to markaasi hanti burburtay toona lama soo warinin laakiin waa la dareemay habeen hore mise habeenkii saddexaad ayaa aad iyo aad degmadaas yaa looga dareemay si kastaba Itoobiya horta mashaqadaas bay ku jirtaa daadgurayntii dadkaas baa lagu jiraa 300 kilomitir oo Itoobiya dhexdeeda waliba gaar ahaan Axmaariyo Oromo oo la yiri dad baa laga daadgurayn intee dhayaad u malaynaysaa Soomaalida ay ka badanayaanba Soomaalida kilalka shanaad oo dhan ayayba ka badan karaan dadka halkaas 300 kilomitir degan sababta iyaga dhulkooda ninkii dhex maray baa dhex maro garanaye meel banaan male dhulkoodu meel banaan male waa sida mukaambada iyo dhulkan hadda Kenya kale sideedoo kale to weeyo aqal buu saarayay meel buur walba buurta afarteeda dhanba sidanay la kabla isku kor saarayeen waa nin iyo beertii iyo hal sax nin iyo beertii iyo laba ida ah nin iyo beertii iyo lax baa ugu xiran hantidooda dhan waa lax iyo idoo waxa weeye waa lax iyo baalki la dhahay kan lo labada weey waxa soo raaca laga yaabaa meelaha yara siman inaad aragto dameer kumana badna xoolaha marka ay dhaqdaan oo dhanba waa inta loo iyo iday dhaqdaan loo iyo iduhuna ma badna ninka ugu badan baa laba sac haysta labada sac baa marka qoobka uga xidhan beertiina meesha ugu taala marka dhulkoodu sidan uu isku saarsaarayay 300 kilomitir waa suurtagal 10 milyan ka badan in laga qaado oo dadoo laga raro hadee dawladda